Norway ayaa maalintii jacaylka ee 14 February oo sanad walba ay kaniisadaha dadka isku guursada albaabada loo furo iyadoo ballan la'aan dadka la isku meheriyo ayaa lagu soo waramayaa in iskoorkii ugu ballaarnaa taariikhda ay xirteen, waxaana lagu soo waramayaa in ka badan 426 lamaane in ay isu guuriyeen, iyadoo tiradani ay ka dhigan tahay tiradii ugu badneed ee soo marta guud ahaan goobaha kaniisadaha ee dadka la isugu meheriyo, waxaana lagu soo waramayaa sanadkii hore in ay gaarayeen lamaanayaasha ilaa iyo 277 lamaane oo maalin kaliya isguursada, halka maanta ay ka marayso 426 lamaane, taa oo ah tiro aad u sarreyso. Mid ka mid ah baadariyada dadka isu guuriya oo lagu magacaabo Harald Hegstan ayaa ku waramaya midani in ay tahay iskoor aad u weyn, maadaama guud ahaan kaniisadaha waddankaasi ku yaala ay albaabada u furaan maalinta jacaylka si lamaanayaasha ay isugu guursadaan. In ka badan 120 goobood oo kala duwan oo ku yaala guud ahaan Norway ayaa lagu soo waramayaa in ay maalintaasi ka dhacayeen meherada kala duwan, iyadoo shardi, shuruud ama ballamo lasii samaysanayo aysan midna jirin, waxaana lagu soo waramayaa in munaasabadahan ismehersiga ah ee ka dhacay goobahaas kala duwan ay ugu badnaayeen deegaanada galbeedka Norway iyo magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway, kuwa oo gaaray ilaa iyo 68 lamaane, halka ay ku soo xigaan deegaanka Arkos oo iyaguna la isku meheriyay in ka badan 55 lamaane, waxaana saddexaad soo galay Trondheim oo iyaduna ay iska mehersadeen in ka badan 27 lamaane. Ha yeeshee wadarta guud marka la isku daro ayay noqonaysaa 426 lamaane oo maalin kaliya isku guursadeen Norway. Tiradan ayaa waxa ay wax badan ka badan tahay tiradii sanadkii ka horreysay oo ahayd 277 lamaane, kuwa oo isku guursaday maalinta jacaylka ee sanad walba loo dabaaldego. Sanadkii kasii horreeyay ee 2024 ayaa waxaa maalintaa isguursaday kaliya 60 lamaane, halka sanadkii kasii horreeyay ee 2023 ay isguursadeen 38 lamaane. Tani waxa ay ahayd iskoorkii ugu weynaa ee maalin kaliya guur ka dhaca guud ahaan waddanka Norway oo gaaray 426 lamaane oo maalin kaliya wada aqalgala guurkoodana uu dhaco. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.